madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maantay bisha ay ahayd 28 bisha Janaayo 2021 qalinka ku duugay oo saxiixay matalaadda gobolka Banaadir ee 13 xildhibaan inuu ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka ee dalka Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta qalinka ku duugay iyadoo hore u soo ansixiyeen aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya in gobolka Banaadir uu ku yeesho matalaad aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya taasi oo noqonaysa 13 xubnood oo dheeri ah taasi oo ay qaybsan doonaan dadka ku nool gobolka Banaadir ama beelaha degan gobolka Banaadir iyo agagaarkiisaba. madaxweynuhu maantay saxiixaasi uu qalinka ku dugay ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka, wasiirka amniga iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, iyadoo halkaasina uu madaxweynuhu ku saxiixay maqaamkii gobolka Banaadir uu ku lahaa aqalka sare ee baarlamaanka. sida aan la socono bulshada ku nool magaalada Muqdisho oo lagu qiyaaso 3 milyan iyo dheeri qof ayaa horey u sheegay inaysan wax matalaada ku lahayn ama aysan sad bursi ku lahayn aqalka sare ee baarlamaanka ee dalka Soomaaliya, taasi oo ay sheegeen inay yihiin canshuur bixiyaasha ugu badan ee bixiya canshuurta soo gasha dowladda federaalka ee Soomaaliya. dadka magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay saxiix maantay oo madaxweynuhu qalinka ku duugay, taasi oo isla maantaba hirgelaysa doorashada dambana halkaasi ay ku soo bixi doonaan 13 xubnood oo dheeri ah oo maamulka gobolka Banaadir uu ka dheeryahay maamul goboleedyada kale ee dalka. doonayaa inaan mahad ballaaran uga jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii qalinka ku duugay matalaadii gobolka Banaadir oo in muddo ah bulshaweynta Banaadir ay ka sugayeen. waxaan leeyahay waan kaaga mahad celinaynaa haddii aan nahay bulshada Banaadir anigoo ku hadlaya magaca bulshada gobolka Banaadir. runtii matalaadda gobolka Banaadir oo ah 13 kursi oo aqalka sare ah waxaa ansixiyay golaha shacabka federaalka Soomaaliya kadib markii madaxweynuhu uu codsi u jeediyay labada gole ee golaha shacabka iyo aqalka sanadka. runtii uu ku dhiiriday baarlamaanku inuu baarlamaanka golaha shacabka uu ku dhiiriday inuu si aqlabiyad ah ku ansixiyo matalaadda gobolka Banaadir ee ah 13 kursi isagoo tixgelinaya codsigii madaxweynaha jamhuuriyadda. halkaas waxaa banaanbaxyo taageero ah mahad celin ah ka soo jeediyay bulshaweynta gobolka Banaadir oo runtii marna u mahad celiyay madaxweynaha codsigii uu jeediyay golayaasha baarlamaanka, marka kalena u mahad celiyay golaha shacabka markii ay ansixiyeen. maantay waa maalintii kama dambaysta ahayd ee madaxweynuhu uu qalinka ku duugay matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare. arrintan waa arrin taariikhi ah, waa arrin sharaf u ah reer Banaadir, sharaf u ah madaxweynaha jamhuuriyadda. maantay ayaa la ogaan doonaa cidda mucaaradda oo ka hor timaada oo runtii ah cadowga reer Banaadir iyo saaxiibka u heliya reer Banaadir oo dareemayay in xaqoodii uu ka maqan yahay. kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Filish oo soo dhaweeyay ansixinta maanta saxiixa madaxweynuhu saxiixay markii baarlamaanka Soomaaliya muddo hore ay saxiixeen in kaalinta gobolka Banaadir ama maqaamka gobolka Banaadir ay ku yeeshaan 13 xubnood aqalka sare ee baarlamaanka dalka Soomaaliya ee dhawaan la soo dooran doono. Cumar Filish wuxuu sheegay in maanta la baran doono cadowga gobolka Banaadir iyo cidda saaxiibka u ah gobolka Banaadir. hore ayaan u ogeyn in Puntland iyo maamul goboleedyo kale ay ka biyadiideen arrintaasi oo ay sheegeen inay xaq darro tahay, balse intii uusan baarlamaankaasi xukun ka hor Puntland waxay hore u sheegi jirtay
in loo baahan yahay maqaamka gobolka banaadir in lasoo dhiso taasi oo cumar finish isagoo ku duuliyeyna yidhi maanta ayaa la ogaan doonaa cidda ka xumaan doonta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo saxiixa maanta qalinka uu ku duugay maqaamka gobolka banaadir iyo 13 xubnood ee lasoo dooran doono baarlamaanka aqalka sare ee mardhow doorashadiisu insha allah biidnillaahi kariim ay dalka soomaaliya isla sanadkan 2021 ka dhici doonto. haddaad ku cusub tahay shaariba show tv fadlan subscribe-ka saaro si aad mar walba wararka iyo tayada leh ee shaariba show tv aad ula socotid asxaabta shaariba show tv-na aad ka mid noqotid. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. حقيرة